in ka badan 45 xubnood oo iska jiraan laamaha ammaanka iyo hay'adaha garsoorka iyo waliba geedka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliland ka gabagabiyay seminaaru soo dareeray muddo 2 maalmood iyo waliba iyo ka baradayna sidii loo hoojin lahaa kaalmada sharciga oo yahay qabanqaabadi wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo yakaaladaasi hay'adda caalamiga UNDP Maxamed Ali Muuse gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo shaqeeb ku hay mas'uuliyiintii xaqab galay seminaarkan iyo waliba soo codsaday seminaarkan oo yoon dareereen muddo 2 maalmood soo waana mahadgaarhan jeedi wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sida fayliye aan agaasintii barnaamijkan yeeri gudoomiyaha maxkamadda sare matalayn aan gaarsiin karno waxay tahay kaalmada sharciga ah aan fahamsiin karno waxyaalaha aan dhamaanteen aan wada qabano marka wasaaradda mar labaad aadan ugu mahad celinaa barnaamijkan waxaan ka codsanaa wasaaradda inuusan ahaan markiisii ugu horeysay waxaan ka codsanaa barnaamijkan inay wasaaradda noo soo celiso tababaradaan ay dhowr jeer noo soo celiso dadkaan maanta ka faa'iideysta xubnahan dadkiisa kale oo maanta xafiisyada jooga ayagana in loo siiyo intii taraan ee wasaaradda ay awood inay nagu caawiso annaga haddii garsoorka aan nahayna insha allahu tacaala waa dadaalaynaa seminaar anaga laftirkeen waa u baahannahay qaab allaal qaabkay noqoto aan ku horumari karno garsoorka waxaa lama huraan ama xaqiiqay tahay halahan meesha fadhiisa inay hal meel isku wada imaan soo bilaabanayso dacwada garsoorka ama ka soo bilaabanayso booliiska ama ka soo bilaabanayso xirlaalinta kama dambeystii haday tahay dacwada ciqaab ay ku dhamaanayso gabagabadii waliba soo meelasay ku hadalay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur oo soo aan baaqan diray ragii ka faa'iideysan seminaarkan intii oo ka faa'iideeyaan dadka kale oo nin saamaana intii ka faa'iideysan seminaarkan oo lan ku hadalay sidii hoojin la sharciga kale oo yaani in lamba maskaxda tiitiis wala ilaahay dheeriya ansay kan kala oo kabiiri ujeedka saasahay inay mayla raayay sida hadba meela target kiya ay walaha markaas uu target garaysan kaliya may hayeen inay oo sharciyadaas cidleenka xiilayo baaha ee isla fahmo runtii dadka shalay awood badanyiin shal karta badanyiin shal aqal badanyiin shal cilmi badanyiin dad mayla raayay u soo gargabo ilaahay si gartay afkishii in ka sheegada korn awood u saaka akala baxawna aan dhamna aan baahan in leenka heelayo umada kale oo heelayo garsoor dhabe helaan in meelka jarto ya cadaati taas hadii oo cadaateen hatana seel weelay ay may la sharciga in heelayo muduni saasaka qoyti runtii may taawiyay aan shalay mid shirka siin furi siin ku tabi hatana tageeka kooyahay ilmo badan oo aan qabo aan ku kaaftoonsan ma lama qanayn inay dadka wala fahmayo mas wala ku fahmaayo kumadaada faday howlaha isku badan marka may la raayay saasaka ma qanayn ma dadka wala ku faa'iideysada ma la rakabonay ta kumaday runtii may taaway in wal badan isweydiideen in wal badan may la raayay su'aalateen in wal badan isla meel dhigtaan ayaa qiyaasay wala liin baahnayn intaasu wala ta khudbadiisi kumadahay tahay ku deereeyay gudoomiyaha إني وقتي إن كوريتي هتن إن كدم بيتي إن لقينا مربضن مراجع بدن للصوبي صح بني آدم كمركز تبوي إنباهنا إني مشاور صوبيو رسول صلوات الله عليه والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلهي أري مسكو حضر له هو اسمه حضر له ولا وحي يدرك حضر الأريام الأري وشاورهم في الأمر عمر كده كل شور يعني هالشور marka fayda azamta fatawakkal ala allah markii oo ay go'aanka dhamaado oo la ku mashaawir azamada madaasa ilaahay inta la saaray laakiin ku hor may wax inii oo nay lalaalama tabaana amar ilaahay baki shaqeeyay waxay baki shaqeeyay seminaarkan oo sahay ko sacdo badan qaadadi walow uu ka dhamaaday jawi eedan degan inkastoo iska ma salaamayeen mas'uuliyiintii lamada maalmood an ka dareeray seminaarkan masla Saala Muhammad masla raage warbaahinta dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Baydhabo